Falastiiniinta u shaqeysa Yuhuudda ayaa waxaa lagu wadaa in la soo dejiyo dhulka loo yaqaano Saylac ilaa iyo dhulka Awdal oo Jabuuti xiga kaasoo soo saxiixay ninka la yiraahdo Cirro in markuu ka degay magaalada Qudus oo ku sheegaya safaarad ku sheegay oo ka soo furanay waxyaabaha uu koowaad heshiiska koowaad ee lagu dhaarinayo ama lagu aaminayo ayay kow ka tahay in dadka dabadhilifka u ah Falastiiniyiinta Yuhuudda dabadhilifka u ah in la soo raro iyagoo qaxooti ahaana kuwaas oo la soo dejin doono dhulka loo yaqaano Awdal gobolka Awdal iyo Saylac area ku hareeraysan haddaba maxay tahay laba su'aal ayaa ka dhalanayso ah maxaa Saylac kaliya loo hadalaya iyo Awdal maxaa loo hadalaya oo hal su'aal ah iyo heshiiskan ma yahay mid uu Cirro fulin karo waa labadaas su'aalood oo degdeg aan uga jawaabayno midda koowaad waa dhulka istiraatiijiga ee dhulka gobolka Awdal laba magaalada Saylac oo ah badii maaragtaa Casayd gacanka cadmeed iyo badii Casayd meesha kaliya isaga dhow yihiin sidoo kale dhulkaas oo Ethiopia ay ku soo socoto Yuhuuduna ay u haqal taagayso waa qodobka labaad ninka la yiraahdo heshiiskan ma suuragal ma tahay inuu Cirro uu ku fuliyo maadaama lagu xujeeyo liiri waxa kaliya kugu aamini karnaa waa in gobolka aad degeysaa oo waliba aad nimankaas Falastiiniinta oo annaga noo shaqeeyahay aad geysaa waxaa si kooban loo dhihi karaa waa mashruuca koowaad oo fashilmi doona kaasoo soo gabagabayn doona cimriga Yuhuudkii soo hadlay 2025 bishii December 26 maalin Jimcaha halkaasna ay ku burburi doonto wax walba oo dhagar ummadan Soomaaliyeed loo dhigay gaar ahaan deesho asagoo ka dhasho Isaaq oo godka dheer ugu riday mashruucii gooni goosadkana halka uu ku dhiman doono waa mahadsantiin